أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 19 oo suuratu nisaa ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay tawbada iyo axkaamteeda ayaa ilaahay nooga soo warramay. tawbada marka hadda waxaa weeye dadku laba qaybood inay yihiin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay. dad oo waxaa weeye tawba ay u sugnaatay iyo dad aan tawba u sugnaanin oo aan tawba laga aqbalaynin. marka alla subxaanahu wa tacaala waxa uuna soo yidhi tawbadu waxaa iska lahoo ilaahay tawbada uu ka aqbalayaa dadka waxa weeye xumaanta samaynaaya ayagoo waxa weeye jaahiliin ah oo markaasi waxa weeye marka ay samaynayaan cisyaankaas jaahil ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala haybadiisa iyo daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala jaahiliinka ah. jahligaasna waxaa weeye saan horuu soo sheegnay qofku markuu ilaahay uu caasinayo waaba jaahil. caalimba ha ahaado hadduu rabe waxaa weeye jaahil buu noqonayaa. marka hadda sidaasuu ilaahayna soo dhahay kabacdina tawba keenaaya waqti qariiba. waqtigaas qariibka waxau ahay qabla alqarqaray eheeday intaan markaasi aan la dhuun yeerin oo markaasi dhuunta aysan soo gaarin naftooda aysan soo gaarin. qoladaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka tawba aqbalaya ayuu dhahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala caalim ayuu ku yahay khalqigiisa, haddana shay walba maxalkiisa u dejinayaa. alla markaas wuxuuna soo dhahay tawbadu uma sugnaanin kuwa xumaanta samaynaaya oo dembiga gelaya markii waxaa weeye axadkood uu ku soo xaadiro mawdka uu ku soo xaadiro oo waqtigii ruuxa laga gaarayo la gaaro waqtu nasci ay taagan tahay dhahaaya markay arkaan waxa ay ku sugan yihiin innii tubtu l-aana anigu hadda ayaan tawba keeno aan soo noqday. qoladaas tawba ma lahow dhah ilaahay. maxaa yeela waqtulqarqara markii la soo gaaro oo waqtiga qofku dhuu yeerinaayo tawba laga aqbali maayo. waxaan ayaguna tawba lahaynin kuwa dhimanaya oo ku dhimanaya kufriga ku dhimanaya waa idaa taabuu fil aakhirati ayagane laga aqbali maayo tawbo. kuwaas waxaanu u diyaarinow dha ilaahay cadaab aliima ayaan u diyaarinay. marka casharkeena hor halkaas ayuu noo joogay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa yaxilu lakum xalaal idiinma ahan an tarisu nisaa'a haweenka inaad dhexashiin karhan ikraah aad ku dhexashiin. walaa tacduluuhunna inaad ka meermeerisiinne xalaal idiinma ahanow dhah ilaahay wixii markaasay idinku lahaayeen litadhabuu inaad la tagtaanow dha ilaahay bibacdi maa shay barkiisa aataytumuuhunna aad siiseen oo mahara ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin foolxumo mubayinatin oo cad ama mubayanatin la caddeeyey. wacaashiruuhunna la mucaamalooda haweenkow dhah ilaahay bilmacruufi si macruufoo wanaaga. fa in karihtumuuhunna haddii aad kahatiinna ku sabra facasaa waxaa mudanow dha ilaahay an takrahuu inaad kahataan shay-an shay wayajcal allaahu allana uu yeelo fiihi shaygaas khayran khayr uu yeelo kasiiran oo fara badan. aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaanu soo qaadanaynaa sabab nusuulkeedii sababtii ay ku soo degtay ayaanu soo qaadanaynaa. sabab nusuulkeedu wuxuu ahaayey culammadu yidhaahdeen
jaahiliyadii waxaa jiri jirtaa la yidhi iyo islaamka bilowgiisiba ninku markii uu dhinto oo haween uu ka tago ama haween badan uu ka tago waxaa imaanaya wiil isagu uu dhalay oo haweenkaas uu ka dhintay aysan dhalin. haweentatan uu ka dhintay wiil aysan dhalin oo isagu uu dhalay ayaa imaanaya, amase nin qaraabadiisa ah oo ilmo adeertiisa ama walaalkiisa ayaa imaanaya. markaasuu haweentaas laga dhintay ayuu maradiisa dusha ka saarayaa, wuxuuna u sheegayaa inay naagtaasu waxa weeye uu isagu guursanaayo, mahar la-aano uu ku guursanaayo, iyo inuu nin kale uu u nikaaxinayo u guurinaayo, isaguna maharka uu ka qaadanayo, amase uu meermeerinaayo ilaa ay iska furanayso amba ay ka dhimanayso dhaxalkeeda uu qaadanayo. arrintaas ayay carabtii jaahiliyada ay samay jireen. marka arrintu ayadoo saas tahay ayaa waxaa dhintay baa la yidhi nin la dhihi jiray abu qays, nin la dhihi jiray ayaa dhintay baa la yidhi. wuxuu ka tegey haweentiisa oo la dhihi jiray kabayshata binti macnin al ansaariya la dhihi jiray. waxaa yimid baa la yidhi wiilkiisaah oo markaas la dhihi jiray qays la dhihi jiray, markaasuu maradiisii u dusha ka saaray haweentii aabihiis oo ka dhintay, kabacdii uu ka tegaa la yidhi. arrimihii hadda aan soo sheegayna waa u sheegayo waxau dhahay anaa ku guursanaya, maharna maaragtay ku sii maayo, amba nin kalean kugu dirayaa, maharkaan ka qaadanayaa. amuurahaas waa dhaqan ay lahaa jireen, oo naagtu waxa weeye markii ay reerkan ka dhimato meel kale ma aysan aadi kari jirin. sidaa markuu ku sameeyey dib dambe uma soo laabanaa la yidhi, nafaqana ma siinaa la yidhi. dhibaatadaas iyadoo islaantii ay haysato haweentaa heeday ayay waxay u tagtay kabaysha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay u tagtay. kolkaasay waxay tihi ilaahi rasuulkiisii o ninka la yidhaha abaqays waa dhintay, anigana waxaa i qabsaday wiilkiisii, waxna isii maayo, jidkaygana iska sii day maayo, aan iska guursaday faraha iga qaadi maayo. markaasuu dhahay rasuulkeena calayhi salatu salaam gurigaaga iska joogow dhahay inta ilaahay amar uu ka keenaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala wax kugu soo dejinaayo. markaasaa aayaddaanu soo degtay. aayaddan marka waxyaabihii jaahiliyadii jiri jiray iyo islaamka bilowgiisa ayay aayaddaanu xallinaysaa. marka alla markaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa yaxilu lakum xalaal idiinma ahanow dha ilaahay an tarisu nisaa'a haweenka inaad dhexashiinow dha ilaahay karhanow dha ilaahay diriq aad ku dhexashiin. haweenka inaad diriq ku dhexashiin oo aad xoog ku dhexashaan idiinma banaanow dha ilaahay. laa yaxilu lakum xalaal idiinma ahan an tarisu nisaa'a haweenka inaad dhexashaan. waxaa laga wadaa haweenta daatadooda weeye. ee hadda waanu soo marnay haweenti oo dhimata inuu ninkeeda casharkeenna aayaddaas ayuu noo joogayaa, halkaas ayuuna ku eg yahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.
casharkeenna halka aayaddaas ayuu noo joogayaa halkaas ayuuna ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.